karti ay lahaayeen way ka gaabiyeen ha waxa weeye nin bukaamaanta oo taaya hadii aad timaado oo aad tiraado maxaa la taaysa hadaba wada aragtay wax xanuunsanaya oo aad tiraado maxaa la taaysa kaasa cadowgiisa ah yiri maxaa la taaysa marka bulshada markii maanta tiraado waan dhibanahay haday tahay waxa weeye bulshada waxa weeye waayeen kala duwanaan maxaa ku saamiga dawladda ku lahaayeen maxaa ku isdhexgalkii bulshada xadii guurka dhan walba marka ay tiraado waan ka dhibanahay oo waan ka maranahay waxa weeye su'aasha ugu horeysa la weydiinayo waxa weeye maxaa waxay ila haysta maxaa la iga qaaday sidee la yiri maxaa la igu hayaa waa ninkii bukeentahay ee aan sheegay buugani hadii aan dul maro ama soo koobayaan waxa jira magacyo mala awaala oo dadku inta badan ay waxa weeye iyagoon sal iyo raadtoon wahay oo awooyadooda ku soo gaaray inay dadka ku tilmaamaan ugu yeedhaan ku ismaan sida imika dadyo badan baa waxa weeye ilaada beelaha gabooye dadka midgaha tumaalo yixiro yibiro macnaha magacyada laftooda waxa weeye time fara badan ma ku bixiyay inaan u galo soo ogaado macnahooda mid kastaaba meesha ku fadhiyo insha Allah buugaan u tagi doontaa waxa uu xasaasisan magacan inta badan Soomaaliya ka martay midgaan isaga laftiisa waxa weeye uu tagaysan insha Allah arrimaha diinta إله سبحانه وتعالى في القرآن سيقول شيء سورة البقرة يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل ولتعارفوا وإن محل سبب لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وحوي ونقولنا هل ما تحوي إذا نكتائنا هي وجدت علماء الدلها ما تهدي مجال البرعو شغالية كنعرو صلاة جمعها مساجد الدل فرنا بيسقط سنة ويا هي حلقة ورم يا شغالة سؤال هاي دبت عيلة هاي وحن حتى الآن سؤال أسرائي وعلماء الدل وحوي وجران يدفك هذي وحوي على مساو صارت هاي محي السبب توجه دوايم تذكر يقول عليه دبت لبني يقول عليه وحوي تسويتين كا مالك والوحوي شو خدمة talabaad saamiga dawladda ku lahaayeen iyo waxa weeye taana waxa weeye kuugood u tagisan kaalinta waxbarashada kaga jiraan waa kii hadrawlaha qalinka wax suureeya fogsimaadka doonto saaxiibka furan weeye sunta farabahintiis kaalinta ay waxa weeye iyada lafteeda waxa weeye waxbarashada kaga jiraan waa ay ku qoran tahay sheekooyin fara badan oo xagga waxbarashadana waa laga helayaa kaalinta guurka waa tawin muhiimsan oo waayo ummaddu waa xid iyo xigaan وأمد أن عندنا حد يحيى الله إن يقول حد يحيى سر نقطة وياه وكيلها نتي أن أدي ولا أنا بنادي أنا يجعل هاي تاسنا وحوي وكانت تبوكا وحوي برشة وحكي أمسنت هي وكيه هذا ولها يسونا أدوك مالي كل يسوع هذا مي قبوية أكتيسية ولا الماضي كأوتي آيات كدين تغيرها سيدا كذا آية بيري حل كل المولد داو وحو شيء يقدر في كريه برشة ما هو برشة كتبان إنسان وحو برشة دي كلا وحو يدي بوجي تزوري يوم مهمنا ذات كان يجلب ترويس بتاعه هلا شباب هم ذو هجبتو دي وحو هدي لا شباب مرة سيدي وحو الله سبحانه وتعالى الله سعدا مرة سيدي وحو الله وحو الله سبحانه وتعالى الله سعدا marka waxa way bulshada iyaga laftoodu kaalintoodii iyaguna way ka gaabiyeen buugan saddexda uu taabanaya in bulshada dib dhaqan ku dhacday ko in bulshada iyaga laftoodu kor u dhacay 40% ay waxa weeye ku leeyihiin laba iyo hal muxriy iyo ifaalaha muuqda ee hadda ka duwan waxa weeye qarniyada hore ee buuga geeyahan intaas ku hadlaya halkan marka uu soo galno iyo barnaamijkan adduunka horta waa ka jirta maaha inta af Soomaaliya ku hadasho kaliya إنه برنامج كان كتير الدون كودن بكتير أصلاً قارب وحلول قليل شيء وقرارات مركزين ترين برجول بس شو كلا قارب كسر أصلاً هذا بتجيس مرة وفانا يبردوا إلى يوروب تجي وحلول تجي ده أدق الحبلة أو سيدين يقولوا يلبس كذا كيابس عقارتي كرتاي مكادات كبعدو إنترنت وكهيلس أصل كل ضدك عرب كسر شيء ده مثلا أما تبري وضدك تشيبسي قليلا وقولون أن ضل هين الدون كتاككم على حق يورم أودها كدوان نوي دجاج وضد أسطورن أشياء الشهاتان وكم بسون سمكة مريم مدمدو وحي كل يجين دخل يجدو مريم مدمدو تروب مدمدو وهالكاتشوجا وهالكاكحدان waxaad ku garanaysaa giraan bir ah ayaa mariyada dhexda kaga jirtay
inantu waxay dhex soconaysaa teendhada madow miyay dhuuban tahay miyay buuran tahay midna garan mayso shaqalkaa shaadirkaa madow oo dhexdaana garaantaa ku leh halkaa cundhurta iyo garaan ku leeyahay jibsi baa la yidhaahaa waa dad aad u qurux badan inan baan moobilkayga u dhiib moobilkayga jogana guriga yahay basaan kuli ordo soo sawir saddex baahan ugu tago wuxuu sawir meel ka qaataa markaasana ha uu soo sawir sawirkooda imka waan hayaa haddaad aragto yurubka reer yurub ka qurux badan oo maraykanka ka qurux badan oo aasiya ka qurux badan asalkooda dadka tugri buu ka soo jeedaa ama carab buu ka soo jeedaa jibsi baa la yidhahaa sidaasaa loo galay iyagaba waxaa loo yaqaanaa yurub dad liitaa loo yaqaana ingiriiskana ka jirtaa maraykan bay ka jirtaa meel kasta xanuunkani wuu ka jira dhibaatadayna haystaa maaha dhibaato imika abuurantay shaksiyan mid ugu dhacdaan idinka sheekeynay hargeysa waxaan tegay 1985 guriga nagu xiga laadhuban ku ciyaarna laadhuu inan baanu laadhuuda isku jaal noqon jirna inantaa sida bahasha ugu xariifka tahay iyo sida aan ugu xariifka ahay waan iska helnay cid kale haddaan maqanahayna cidna lama jaalahayo hadday iyadu maqan tahay adna cidna lama jaalihi dadka kaluma wada ciyaara caashaan la odhan jiray waqtigaasay ugu dambaysaa maalintii dambe yaan damacaynan burca soo qabto oo intii aan fiisu ku talagalay ka dhammaatay gurigooda waan cabbaa fiid haddaayo kalaa waddankana colaad iyo dhibaato iyo raaf iyo waxbaa ka jirayo waqtiyadii dadka inta guryaha lagala baxo ayay ahayd waa lay doondoonay waa lay waayay gurigan gurigaya ku dhegsan baan hablihii inantii iyo hablo kale iskala sheekaysanaya igama qasnaba markan ka soo baxay nin yaroo aan hablo wadaagnahay imikana hargeysa jooga iyo guri xaggaad qabto masaan kuula caashihii baan la jooga qoryaha warsuuniyo gurigan gabooyaha imika bartay waa maalintii igu horreysay aan gabooyana maqlayba anigoo weliba afgaaraan u leenaho imika mala baaqdamaa maxamed qolada weliba afgaaraan leenaan ku wada hadallo imika anigii maxamed haddaan ku wada hadallo qasr u dhacaysaa annagu welibaanu isku xaafad ku soo kacannay inta badan qolada magacaadi haddana magaca gabooye la yidhaahdo maanaana qoran maalintaasi warsan gabooye waa maxay inantii iyo reerku way soo macasalaameen reer aad wanaagsan baa way soo macasalaameen burcaan iskayn beri dambaan waxa uu ogaaday gabooyaha uu sheegayo iyo inantii in gabooyuhu yahay dadka caynkaas runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qaybgalo munaasabadda qaaliga ah ee lagu soo bandhigayo buuggan magaciisa la yidhahdo Tursooc inkastoo xafladda runtii yarada ahay oo howlo aan ku yara mashquulay waan ka raaligeliyay kasoo qaybgalayaasha dhammaantood haddana guud ahaan markaan eego dulucda munaasabadda waxaan dareemayaa runtii in munaasabadan ay ka mid tahay munaasabadaha muddada dheer aan ku fikerayana maalin maalmaadkooda noloshayda ka qaybgeli doono marka haddii caawa noqotay runtii aad baan ugu mahadnaqayaa cid kasta oo waxay kasoo ka qayb qaadatay quruxda iyo abaabulka xafladda gaar ahaan waxaan u mahadnaqayaa qoraha buugga maxamed ismaaciil oo ah runtii xubintii ku soo xasuutay xafladda inaan kasoo qayb galo islamarkaana ah arday ka mid ah ardaydeedii muddadii jacaaligeeda waxaan jecelahay caawa inaan kelmad bartanka idhaahdo aan rajaynayo inta noloshayda ka hadhay in shaqo maalmeedkayga ay ka dhex muuqan doonto haddii ilaahay ka dhigo oo ah in aan ka qayb qaadan doono haddii ilaahay ka dhigo yacni tirsooca iyo kala qoqobka iyo kala qaybinta iyo kala kaxaynta bulshada walaalaha ah reer Somaliland ee muslimka runtii waxaan rajaynayaa qof kasta ama cid kasta oo ka soo qayb gashay xafladdan inay iyadu insha Allah tacaala qalbiga ay ku hayso oo ay diyaar u tahay inay kala qoqobka iyo kala qaybinta runtii ay ka qayb qaadato إنك محمد إسماعيل علي وكل يقضي إنه موضوع عنده أخبره وحنا حتى حسب محمد إسماعيل علي وحنا كان وقام هذا علينا بعض الكلام وقلت من هذه حبيبة إن الرجال كانت تقول أما هي بدون أبسط بالبيان
intaa marka ka imaado waxaan ku soo koobiyaa halkan maasayar oo qayb ka mid ah ay ka hadlayso dadka gabooyaha ama walaalaheen waxa sidan ay u dhacaysaa bulsha waxay wax garataa gabankeedu toosaa garkogoo mataliya gulufka iyo qolaada iyo qurabaas sokeeye gardarrada la dhaafaa gilgidayshka markaynu gebi adag ka tuurnee gabooyahan had iyo goor ku guracan agteena gasid hay dambeeye cilmiyo isgaadhsiin uji maysid lagu yidhi guuldarrooyinkaa jira waxaan kaga gudbaynaa innagoo ku dhaafno gobonimada dhowrnee iyaynaan godoobin gacanteena midage ka cabsooda guuleen anigu waxaan dibro dardaarmayaa cabsida ilaahay yaa ambiyadii iyo ummadihii inaga horreeyey dardaarankii ay markaa waxa weeyaan lagula dardaarmay oo ahayd markaa waxa weeyaan idinka iyo ummad idinka horraysaba waxaan kula dardaarmaya inaad alla ka cabsataan alla ka cabsiga ayaan anigu naftayda iyo kuwiinaba idinkula dardaarmayaa barnaamijkan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ka soo qaybgalkiisa aadna waan u soo dhowaynayaa insha allahu tacaala ka mu'asasatu karam ahaan mu'asasatu karam lidacwati wa tanmiya waxaa laga yaabaa wejiyo fara badan ama dhallinyaro fara badan oo halkan fadhida in aanay aqoonin insha allahu tacaala laga bilaabo markaa waxa weeyaan habeenkan caawa waxaan doonayaa inaan idin baro intii taqaanay way taqaanay inta aan aqooninna mu'asasatu karam lidacwati wa tanmiya waa mu'asasad ku howlan markaa waxa weeyaan sida magaceeda ka muuqata in markaa waxa weeyaan diinta ilaahay iyo markaa waxa weeyaan mujtamaca sidii la isugu xidhi lahaa taasa baan nahay waanu idin soo dhowaynaynaa waanu idinla shaqaynaynaa arrintanna markaa waxa weeyaan sheekh ayaa aad iyo aad wacyigelinteeda iyo wacyigeeda uga hadlay ninna waxa weeyaan laa fadla carabiyun cala alcajabi ninka carabka ninka cajabigaa kama fadli badna markaa waxaa lagu kala fadli badan yahay waa taqwada iyo alla ka cabsiga weeyaan man badaa bihi camalahu lam yusric bihi nasabahu ninka camalkiisu dibdhigo qabiilkiisu laandheero ka dhigi maayo qabiilada uu yahay laandheero ka dhigi maayo taladaan bixinayaana waxa weeyaan ama aan u soo jeedinayo sheekha ayaan la qabaa sidaa idinku iska dhigtaan ayaad noqonaysaa bulshadaa ka mid tihiin ma yasnidinin dadkana kama duwaninin laakiin waxaa loo baahan yahay hadba intaad adigu ilaahay karaamaysid ayaad adiguna karaamo mujtamacaad ka helaysaa u sheegaya dadkan iyo fadhiya oo maadaama isugu jiraan daadu ay bulshada qayb ka mid yihiin oo sheegay horta maxamed waxaan ku dhiirigelinayaa maxamedow haddii aad maanta dhalinyaro idinka mid ah aad maanta ku dhiirigelisid in iyagu halkooda kor u qaadaan amaba ayagu qof walba intuu sharafun baa la sharfaa maanta haddii aad adigu maxamedow aad dhalinyarada ku dhiirigelisid inay halkooda kor u qaadaan oo qofka hoos u dhiga ay ku idhaahdaan ay ka jeestaan waxay yidhi cadab waxaa la yidhi saad uga guulaysan karta cadabkaaga keliya waa loo dhoolacdaya dhabarkana waa la tusaa marka waxaan ku odhan lahaa maxamed haddaad maanta dhalinyaradiina aad ku dhiirigelisid say iskaga muujin lahaayeen bulshada kuna dhiirigelisid say waxbarashada iyo halkooda meel sare u gaadhi lahaayeen runtii waxay noqon lahaayeen waxaad noqon lahayd kuwa meel ka soo jeesta annaguna haddaan nahnay dhalinyarada waxaanu diyaar u nahnay inaan dadkaa kor u qaadno haddii aan kelmadda labaad idhaahdo bulshada waxaan odhan lahaa maanta inagaa u sababa in dadkaa hoos loo dhigo maanta qayb inaga mid ayaa u sababa in dadkaa hoos loo dhigo laakiin haddii inagu dadkaa kor u qaadno kor ayay soo qaadeen haddii dadkaa hoos u dhigo hoos ayay soo dhigayaan marka waxaan idin leeyahay maxaa idin dilaya dadkiina walaalihiina aad isla sharaftaan oo sidiinoo kale aad u qadarisaan oo si qof walba naftiisa u qadariya u qadariyo xaqiiqatan oo munaasabad aad u qaaliya weeye oo welibana ku saabsan aqoon iyo cilmi ku saabsan welibana ku saabsan midaynu aad ugu liidanno oo ah qalinka inaynu qaadanno ummadu waxay ku horumareen inay waxa weeye waxyaabaha dhibka ku haya iyo mushkilaadkooda inay qalin ku xaliyeen buxuud iyo maqaalaad iyo kutub inay waxa weeye ka sameeyaan laakiin ummadda soomaaliyeed waxaad moodaa sidii baadiyaha ay ku joogeen inay xitaa aqoontoodii ay noqotay oo ay doonayaan afkooda inay maalaan oo afkana ay wax isaga gudbiyaan hadda maxamed tusaale fiican buu inoo yahay waana wax dhiirigelinaya jiilka la midka ah in waxa weeye mushkilaadkeenna aynu qur-aan ku xallino taas aad baan u soo dhaweynaya allana subxaanahu wa tacaala qalinka meel uu gaadhsiiyey
إلهي كتاب في سواء كدار نون والقلم وما يسطرون الله سبحانه وتعالى وكدار آياته وجوه رينا محمد عليه الصلاة والسلام لقصر الدشيء وحكم لها اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم كتاب كان ما أنت الصومالي هالنظر لكن أنا وحكويا لا أنا أغي عوانك سيوم موضوع وكهض يبقى أيضا وموضوع دينتين وآيات يا هذا الشيء آيات بدن يا أحاديث بدن لوه ليو ولا لدنا وكذا واجينا هذا البدن ماشي نوغا مفرنا وهي برشد وبرشة مسلمة هذه مشكلة لحلنا ينا حلك كواد اللون نقول يا ودين الإسلام وكتابك يا سنة النبي عليه الصلاة والسلام مشكلة النسيرة تهري وحلية ولكن محمد وحن في الأيام عسك شرب بدنه وعسكان أيوه أما هلك وبدنه ونقضي ودين الإسلام وحل يدو وحوي أسمى قضيتنا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وكل صباحي هاي بصع يدر صع يصيد انت رب الشرع ولا استعمالية ولا يكهن ولا يسوق بيه ولا يسافلق عديني وحول ولا يسوق سميني إلا بعض القبائل الجارسية سيد الله هاي بصعي عبد الله بن مسعود وتقانا صحابي الجليل قبيل كوكسر جيد باهلا وحوي قبيل الله هاي بصعي وحد عضي maalmaha kamida nin qabiilka ka soo jeeda nina qabiilka ka soo jeedin ayaa waxa la yiri jannada ma doonaysaa inaad gasho laakiin beeshana aad ka mid noqoto yaani beesha dhalashadeeda lagu siinaya jannadana waa lagu balan qaaday wallahi wuxuu jannada waa doonaya laakiin bishar hadii aan galo inaan beesha aan ka dhashay inaan ogaan ee hadda aan qaadanayo dhalashadeeda halkaas ay maraysaa hebso لكن محمد عليه الصلاة والسلام وابابي هو كتخلصي هو حوي السنن بدن القوانين بدن وكجدي أو صحابة وحوي وابلي قال يا أدبا الله نتقال تدخيبا لولاني تدخيبا لمدي تنوع عسى ومن إن شاء الله تعالى أنفل أيوه حج يدون كسبا الدين تينين ونقول دين تينين ونقول هاي بصوعا باشا قبو يلا هاي بصوعا أيوه anigu waxay la tahay beelaha kala laftoodu way saayib sooca oo waxa weeye taayaga haysata haba ka fududaatee waxa weeye qabiilka la yaso ee laga yaabo in hadalku ku badan yahay ayaa isna wuxuu sii eeganaya qabiil sii hayb sooco Sacuudiga dhowr 10 sano ku noolaa dadku waa dabaqado waxa ugu sareeyay nimanka aan Sacuudiga waa taqaana nimankaas wadanka iska meeshay doonaan bay qabsanayaan siday doonaan bay ka yeelaan waxa ku soo xiga qabaa'il waaweyn oo iyaguna qabaa'isha ka hooseeya takoora 220 baa la yiraahdaa waa dadka Sacuudiga midna waa 110 midna waa 220 qabaa'isha waaweyn baa 220 lagu sheegay wixii ka hooseeya gabdhahooda ma siiyaan bal mabagayaba mana soo doono waana qabiil nasab oo dhalada qabiilada ay saamday waxa ka sii hooseeya qabaa'il 110 kuwaasina waxay siiyaysaa dad bilaa qabiilo Sacuudiyiina waa Soomaalida dhalashada qaadatay ama Indoneesiyaanka ama dadkii xajka ka haray Yamanta dadka aan wadanka u dhalanay aan ka soo jeedin dhalashada qaatay bay iyaguna madaxa kaga taagan yihiin oo yasaan kuwaasina waxay siiyaysaa dadka waxa weeye sida iyada iqaamada ku tagay shalay tagay ee aan dhalashada gaarin kuwaas ayana ku sii tutaan gabdhahooda ma siiyaan قضية استاجي سماها هدية سيد ماشي اعتمادك الله يسي يسوون عيد السية سهدو هلي وسيوري بكا هورتا دد بدن بان دادي يا 66 يا علم وحوي مجتمع وحشنتا واتنا هورمركا ديريسا واتديريسا امدونا وحولا قبسطو واتديريسا إني أمدها لمدكاي لمد نقطو تنوع سولا ليال وإني نولينا عوغسو ودجيسنا باشا قبوينا سيقارا وحانو لي هاوشا إذكا قعدتك وهيا إذكو سيداد اسكا ديكتاب وهي ومدنا هكسوغينا إنا إذين تناسلات وإنا أقونتينا يقلنكينا يددالكينا يا وحوية وحقبسينا يسكاشينا يا هرمالكينا هذا وغشا قيسا تاساد وحوية وحكوه ليسا ما أنت
qadiyadii walaalkay ka dhawaajiyey horena suldaankaaba ii soo weydiiyey meesha in dad badani dibadaha ay kala soo xidhiidhaan oo ay yidhaahdaan suldaan waxaanu kaa doonaynaa abtirsiyaanu kaa doonaynaa aanu sheeganno interview baanu gelaynaa oo meel baanu iska dhiibayna sheekh waxa uu yidhi haddaan nasabkaa beenta aan siiyo diintu maxay ka qabtaa buu i weydiinay waa qadiyadaha u soo noqnoqota maxamedna waa kii sheegaya hadda malyan iyo bar inay gaadhayaan laakiin anigu halkan caawa waxaan kula talin lahaa malyankaa iyo barhkaas hadday mid walba youtube ka duubaan ama tv ka duubaan iyadoo nasabkaa loo laqimayo lagana saxeexo maanta laga bilaabo inuu gabooyo yahay de waxaan filayaa si fiican bay meesha usoo kicday oo waxa weeye ersoorka waa dhammaan laha waan filaya marka taasna waa jaanis aan filayo ummaddu inay isku dhex galayso 1 malyan iyo bar oo meelaha kala duwan ee Soomaaliyeed oo gabooyo wada noqday oo mid waliba qabiil kale uu ka soo jeedo waxaan filayaa taa lafteedu waa tallaabo weyn oo si gaar ah meeshaas ay haybsoocan uga baxayso laakiin guud ahaan sidaynu tilmaannay xalkeedu waxa uu yahay diinta alla inaynu u noqonno sidii hadda gudoomiyaha jaamacadda intiis u sheegayay inna akramakum cinda allahi atqaakum ilaahay baa kitaabkiisa inoogu sheegay dadku waxay ku kala fiican yihiin oo ku kala sharaf badan yihiin oo ay ku kala qiimo badan yihiin siday ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ugu dhow yihiin ولذلك وحبايا ايتانا إن آدي آدو بدنالو أننا كجامعة النجاح جامعة إسلامية هذا طبعا كسر كرني كعلماء أهان كدعاء أهان لنعيل إن شاء الله تعالى هذا خطبة جمعنا قعد ستان جامعة هذه قونا يسوع قليل هذه وحوي مساجد الآن دروس كبيرة بينه انت بعد من الديار بانو إذي لنا هاي إذن كنا واجبين إن شاء الله تعالى كصباحا muuqatay waxay tahay dadkan waa dad aan tiradoodu yarayn kuna nool dhammaan geyga Soomaalidu ay jirto marka maxaa la jecel inuu weydiiyo dadkani ma jirtaa haybay wadaagaan sida dadka kale tusiimada ma wadaagaan oo dadka siman ma yihiin soo dad ay danta iyo hawsha sugeen inay su'aal Maxamed ku saabsan farsamada qaanada waa ognahay gabadha dadka qaanada badan baa ku jira marka buugalkiisa dhiirigelinta la kusiinaya buugal muxuu tilaabooyin oo qaaday si dhiirigelin loogu sameeyo wada meelaha ku jiraan meelaha qashaawiyo ay ku jiraan waa farsamada qaanada hadii dhiirigelin loo sameeyo ayaa leeyahay waxyaabo soo saaraan oo waddanka dowladda u qaaday marka maxay soo jeedin dhiirigelinta la kusiinaya tirso dadka weeye farsamada qaanada dhibaatooyin ku jirta iyo ummadda dhibaatooyin lagu hayo laakiin qora duugaaga ku jira qodobo ama qodobada goobta ku dhinta waxaan uga kacay inaan Maxamed Ismaaciil Cali oo ahaa shakhsi aan isku talaas ahayn jaamacadda ka qalin jebinay inaan u hambalyeeyo waxaan leeyahay marka koowaad mar labaad iyo mar saddexaadba congratulations yacni waxaan odhan karaa waa haldoorka gobolka Togdheer Maxamed Ismaaciil Cali يعني جروبنا الجوجل لقى قري هدي اللي هي 10 nin oo Maxamed oo kala ah waxaan oran lahaa way saray lahaay laakiin 10 nin oo Maxamed oo kala ay ka soo baxaan tobaadii weydiiyay wararkii Jamaal Cabdiraxmaan Quraane oo yiri ma jiraan dad soo hay ay isku yimaadaan waxaan sheegnay dadkan waxay ahaayeen dad boqortooyada ugu horusan boqortooyadoodii waxaa loo jiray waxay boqortooyadii boonta waxaa hogaamin jiray boqorkii loolan jiray Baydari muddo kadib boqortooyadii waa la jebiyey oo sababta loo jebiyey tagrifo laga sheegtay oo boqortooyo waa caan marka magaalada taariikhda eegayso boqortooyinka hore laba boqortooyo isku gaashaan guursan jiray dabadeedna way jebin jireen kadib intii soo hadhay boqortooyadii markii ay jebisay intii soo hadhay waxa ay ku dhex milmeen bulshooyinkii kale ee kala deganaa wadamada waxa weeye dadka Soomaaliga ku hadla maanta waa laga soo helayaa seela ilaa iyo waxa weeye marka hadda loo socdo gobolada waxa weeye dhexe waa dad waxa weeye la dhaqmay dadyoogii kale ee halka ay deganaayeen oo waxa weeye inaga kuwa maanta burcaddeedii ma jecla inay waxa weeye ka soo jeestaan gobolada kale waayo dhaqanka garanaya oo ma dhaqan garanaya taasoo waxay sababtay in ay waayaan hayb ay isugu yimaadaan dabadeetana waxay la bixeen magacan gaweyne oo waa dalad laakiin haybtooda marka aad waxa weeye sii tikraacdo qolo kastaaba
waxa ay ku arooraysaa meel dabadeetna waxaad u arkaysaa inay yihiin dad dantuusu keentay dad markii ay jireen qabaa'ilooyin kala duwan iyagoo ah intii marba waxa weeye isgaranaysay ay isgarabsatay marka taajna waxaan ka jawaabayaa walaalkay waxay ahayd intaasun oo waxa weeye haddii imika qola kasta way wadala waa dhowr waxa weeye qabaa'il oo isku yimid dhowrka qabaa'il qabiil kastaaba oday ku gelaya sida maanta waxa weeye shacbisaaq oo kale la isugu tagayo ee dabeetana qolyaha qaar intay socdaan dacarabka tegayaan qaarna waxa weeye ku adkaysanayna afrikaanka su-aasha labaad waxa weeye su-aasha labaad farsamayaqaanka uu ka hadlayaa buugu farsamayaqaanka iyo waayihiisa waynu ognahay oo farsamayaqaanimo marka laga hadlayo dee nebi daawudba waxa uu ahaa deetuma in waxa weeye farsamo in la isku yasaa waa mushkilada iyo dhibaato dadkii waxa weeye maanta waxa weeye sanadkii hore nabay jirin kaba la xidhaa dadka markay joogeenna waxay yidhahdeen maxaa ugu dhawan kaba samayn karnaa ummadda waxa ay sameeyeen in haragga waxa weeye marka neefka laga saara la tuurayay intay waxa weeye hooriyaan oo mididayn ku sameeyaan dabadeetana ay kala ka samayn jireen saamo lagu sixay ka samayn jireen iyagoo dadkan waxa weeye jilidku cagaha waxa weeye aad la yaabayso taas waa taa buugu waa ka hadlaya farsamayaqaan iyo qiimihiisa oo jabta la yidhahdaa ku jira waan dhiirigelinayaa in waxa weeye maanta waxay sida muraayadda in la daawado taiwan waa wadan yar waynu aragnay waxa weeye waa wadamada iminka waxa weye dhaqaaladii soo kobcayo waxa heerkaa gaarsiiya waa farsamayaqaankoodi way ictiraafeen way garteen waxa weye kor bay u qaadeen china waynu aragnay maanta heerku marayo waqtigii la jibiyey taariikhdeena ku garanayna boqol dhalinyaraa buu farsamada isoo barta oo kenya oo wadamada galbeedka u diray maantana waynu aragnay waxa weye china barta marayo somaliland haddii aanay ictiraafin waxa weeye dadkooda farsamayaqaanada iyaduna xagga aan ictiraaf ka heli mayso caalamka ictiraafka doonaysa ka heli mayso taasuna waa taa haddii aan cabdimaalig uu su-aashiisa u gudbo inta ay soo ka qaateen way jirtaa waa kii hadraawlaha wuxuu isagoo hadraawna ka hadlaya gabaysi mujiriin waa kii ku sheegay kaalinta ay dadkan ka qayb qaateen oo uu lahaa waxa weeye gabaysi wuxuu ku yidhi hadraawi dhibaatada halkeedii horada uga dhabcaasheen maantana sidii dagactahayda ugu sii dhaginaya inta shay la dhowrtiyo haddaan diinta kugu dhaafsho inta gabadhab leeyahay haddaan kaaga dhira fuulo haddaan dhaho haddaan dhigo haddaan weliba dhiibdhiibo dhaqdhaqaaq makaa iman karaan dhiga lagu baajo marka waxa weeye haraawina waa kii ka geliyey ee lahaa waxa weeye haraawina waa kii sheegay way jirtaa kaalin ay ka qaateen waa dad haykalkii nololeed ka qaracay qofkuna markuu haykalka nololeed ka qaraco uu arki waayo cid dhiirigelisa ama uu arki waayo waxa weeye cid waxa weeye maanta sarad soo qabanaysa waxa weeye waxa dhacaysa in waxa weeye uu ka qanaco noloshii taasna boqolkiiba 40 iyaga lagu canaanaya sidoo looga baxaya waxa keliya looga baxaya waxa weeye waa laba midab oo iska cadday maanta waa in dadkan dhigta tabanaysa ay marka hore waxa weeye diinta ilaahay bartaan naadiga ku xogsiiyaan waxa weeye dhaqaale sameeyaan isdhexgal bulshaa imaanaya marka ay saddexdaas wadaagaanna waxay noqonayaan dad tira yar oo tayaan dabadeetna ma jirayso magacyo malaawaala waxa weeye quursi dambe iyo waxa waaye way ognahay ninka maanta lacag haysta ama waxa weeye sumcad iyo magacle waxa weeye سمعت يا مقالة وما تهرب كذا حلقة وعند الجزائر نسوس من ربنا حلقة وحول ربنا يوم ويقولنا أي لابد رفع برشوا كعبانيسا برشوا حول تبانيسي برشوا لقى تبانيوم ومشى إحنا بدأنا نحن وقتديشة علماء وإننا جوتا أنا كان وحوي نانتو يوم نحسن ربنا وشيء إن نانت هذه برعو حاجة مرة تركي ما دام حنا تركي ما دو إيه هو يمسافر صلاة على الجودة هذه القضية وعن جعلنا إنه هو يساعدها جمعها إن لها الضوء هو قضية معنا لنسوي العليو وهو الدولة وهو يدرس الهوس ويكتب أو إنسان إلى هاي كذا القطع يقولون يريد تمام الشيء